tartanka. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago soo qabashadii madaxweynihii waddanka Venezuela oo ciidamada Mareykanku ay xalay soo qabteen ayaa waxaa ka hadlay oo shir jaraa'id qabtay madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump, wasiirkiisa dagaalka Pete Hegseth, wasiirka arrimaha dibadda Marco Rubio iyo taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Daniel Raisin Kane. waxayna faahfaahin ka bixiyeen howlgalkan markii qorshihiisa uu bilowday ilaa sidee loola socday dhaqdhaqaaqa madaxweynaha waddanka Venezuela, imise diyaaradooda ka qayb qaadatay, Mareykanka diyaaradihiisa wax miyaa ka soo gaaray, iyo Trump uu yiri anaga ayaa sii maamulayna waddanka Venezuela ilaa iyo aan ka helno cid aan ku wareejino. Trump mar la weydiiyey in Congress-ka uu ku wargeliyay arrintan iyo in kale muxuu ka yiri, iyo sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha Congress-ka ee labada xisbi oo arrintan si kulul uga hadlay islamarkaana madaxweynaha ku cambaareeyay. Arrimahaas oo idil ayaan idinla wadaagayaa, balse marka hore weeraray waddanka Venezuela. qaraxyo xoogan uu ka geystay caasimadda waddankaasi ee Caracas, militariga Mareykankuna noocyadiisa kala duwan ay ka qayb qaateen, kadibna inta gurigiisa loogu tagay isagoo hurda in madaxweynihii waddankaas Venezuela Nicolas Maduro iyo xaaskiisii Celia Flores gacanta lagu soo dhigay. Sawiradan ayaa madaxweyne Trump uu soo geliyay bartiisa Truth Social iyadoo la soo qabtay. Mararka qaar waxaad arkaysaa isagoo qaybta sare ka qaawan oo diyaaradii helicopterka ee lagu soo qaaday dhex fadhiya, islamarkaana wejigiisa cara iyo xanaaq xoogan ay ka muuqato. wadamo fara badan waxay leeyihiin arrintan ma awood sheegasha, ma afduuba, maxaa arrintan lagu salayn karaa? Haddaba madaxweyne Trump qasriga Mar-a-Lago ku sugan maadaama fasaxiisii sanadka cusub ee howldeeyada uusan weli ka soo laaban, ayaa xitaa waxay soo bandhigeen sawiradan markii howlgalku uu socday. wasiirka gaashaandhigga oo taagan ama wasiirka dagaalka Pete Hegseth, madaxweynaha ayaa ka muuqanayo, la taliyaha amniga qaranka iyo wasiirka arrimaha dibadda ayaa ka muuqanaya markii howlgalku socday oo ay mas'uuliyiinta kala duwan ee Mareykanku ay si toos ula socdeen. Haddaba shirkan jaraa'id madaxweyne Trump ayaa ugu horreyn ka hadlay, waxaana uu sheegay in militariga ay howlgalkan ku fuliyeen isaga amarkiisa, waxaana uu yiri howlgal noocan oo kale ah lama arkin ilaa iyo sanad dagaalkii labaad ee adduunka. waxaana madaxweyne Trump uu xaqiijiyey in caasimadda Caracas xitaa nalka qaybo ka mida laga damiyey, howlgalkana uu ahaa mid qorshaysan oo ciidamada militariga ee Mareykanka ay ka fuliyeen dhulka, cirka iyo weliba badda. waxaana uu sheegay in lagu soo qabtay hogaamiyihii waddanka Venezuela Nicolas Maduro iyo weliba xaaskiisii Celia Flores oo dacwad Mareykanku horey ugu soo oogay maadaama Mareykanku uu ku eedeynayo in daroogada soo galaysay Mareykanka uu Maduro madax ka ahaa. laakiin dad fara badan oo hadda xildhibaano ku jira Congress-ka oo labada xisbiya waxay leeyihiin arrintan la dagaalan darooga ma aysan ahayn, waxaa la doonayay in xukunka ka jira waddanka Venezuela gabi ahaanba la bedelo. haddaba madaxweyne Trump oo xaqiijinayay in Mareykanku uu gacanta ku soo dhigay Nicolas Maduro waxaa hadaladiisii ka mid ahaa. Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been
indicted in the Southern District of New York. It's Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. sidoo kale madaxweyne Trump waxa uu shirka jaraa'id ka sheegay in Mareykanku uu sii maamuli doono waddanka Venezuela. Arrintaas waxay noqotay arrin la yaab leh. Waddan madax bannaan sidee waddan kale oo madax bannaan uu doonaya inuu ku maamulo. wuxuu leeyahay dadkan iga dambeeya ayuu yiri xitaa oo xubnaha golihiisa wasiirada ayaa sii maamuli doona inta aan ka helayno cid aan ku wareejino. wararka qaar waxay leeyihiin haweeneyda hadda bilada nabadda ee Nobel Peace Prize-ka ku guuleysatay oo Mario Corina Machado la yiraahdo miyaa loo dhiibi doonaa, ma hogaamiyaha mucaaradka loo dhiibi doonaa, ma madaxweyne ku-xigeenkii Maduro oo hadda la leeyahay ruushka ayayba joogtaa oo way carartay ayaa loo dhiibi doonaa. marka laakiin Trump waxa uu leeyahay ilaa aan ka helna cid aan ku wareejino inaga ayaa sii maamulayno si aysan u dhicin waxyaabihii hadda aan muddo sanadaha la dagaalamayno oo xukunkii kaligii taliga ahaa. marka Trump hafkiisa waxa uu ku qiranayaa in ay doonayeen regime change wax la yiraahdo oo in la bedelo maamulka ka jiray waddanka Venezuela iyo waliba khayraadka dhinaca shidaalka waxa uu leeyahay inaga ayaa sii maamuli doona. Trump oo arrimahaasi ka hadlayna mar kale waxa uu yiri We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. dhinaca kale taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka ninka la yiraahdo General Daniel Raisin Kane ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay sida howlgalkan uu u dhacay. horta waxa uu yiri qorsheynta howlgalkan waxa uu bilaabmay bishii 8 ee Agoosto ee sanadkii 2025 ee hadda dhamaaday. marka waxa uu sheegay in sirdoonka Mareykanku ay in muddo ay ku mashquulsanayeen sida ay Maduro halka uu ku nool yahay ay ku heli lahaayeen. waxa uu yiri waxaan la soconay sida uu dhaqdhaqaaqo, sidoo kalena waxyaabaha aan la soconay waxa kamid ah sida uu u safro oo safarkiisa meelaha uu ku tagayo, waxyaabaha uu cuno, waxyaabaha uu xirto iyo sidoo kale xayawaanada uu leeyahay. sidaa darteed waxa uu leeyahay December horaanteedii ayaa arrintaasi oo idin la soo gabagabeeyay waxaana aan sugaynay xilliga ku haboon ee howlgalkan iyo daqiiqada ku haboon ee la fulin karo oo waliba qatar aysan uga imaan karin dadka shacabka ah ee reer Venezuela iyo sidoo kalena labadan qof ee la soo qabanayo oo Maduro iyo waliba xaaskiisa iyo ciidamada howlgalka fulinayo. waddanka Venezuela waxaan ognahay buuro ayuu ku dhex yaalaa, marka cimiladiisana waa isbedbedeshaa ayuu yiri. marka xalay ayaan fursad u helnay ayuu leeyahay in waqtigii ku haboonaa ee cimilada la geli kara ay ahayd. sidaa darteed ayaan howlgalka ku fulinay markii sirdoonkaasi oo idil aan soo gabagabeynay. taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka oo arrintaasi ka hadlayayna waxa uu yiri Let me talk a little bit about the preparation. After months of work by our intelligence teammates to find Maduro and understand how he moved, where he lived, where he traveled, what he ate, what he wore, what were his pets. In early December, our force was set pending a series of aligned events. Key was choosing the right day to minimize the potential for civilian harm and maximize the element of surprise and minimize the harm to the indicted personnel so, as the president said, they could be brought to justice. taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Daniel Raisin Kane ayaa waxa uu sheegay xalay saacadda Mareykanku markay ahayd 4:46 in madaxweyne Trump uu bixiyay amarka lagu soo qabanayo madaxweynaha waddankaasi Venezuela Nicolas Maduro. waxa uu yiri 20 saldhig oo kala duwan ayaa 150 diyaaradood ay ka kaceen oo waliba dhulka iyo badda ah. waxana uu sheegay diyaaradahaasi inay isugu jireen kuwa wax duqeeya, kuwa dagaalka, kuwa wax basaasa
iyo diyaaradaha daroonka oo cidna aysan wadin waxuu yidhi askarta howlgalkan fulisay da'doodu waxay u dhaxaysay 20 jir ilaa iyo 49 waana militariga ay ahayn waxuu yidhi joog ilaa iyo